maalintii ugu horreysay ee toddobaadka maryantii reer magdala ayaa aroortii hore xabaashii timid intay weli gudur ahayd oo waxay aragtay dhagaxii oo xabaashii laga qaaday sidaa daraaddeed way oraday oo u tagtay simon butros iyo kii kale oo xerta ahaa oo ciise jeclaa waxayna ku tidhi sayidkii ayay xabaashii kala baxeen oo garan mayno meeshay dhigeen saas aawadeed butros iyo kii kale oo xerta ahaa ayaa baxay oo waxay tageen xabaashii way wada ordeen labadoodiiba oo kii kale oo xerta ahaa ayaa butros ka dheereeyey oo uga hormaray xabaashii markaasuu foorarsaday oo wuxuu arkay maryihii oo yaal laakiinse ma u gelin haddana simon butros oo daba socday baa yimid markaasuu xabaashii galay oo wuxuu arkay maryihii oo yaal iyo maradii madaxiisa saarnayd oo aan la oolin maryihii laakiin meel keligeed ku duuduubnayd markaas haddaba waxaa galay kii kale oo xerta ahaa oo hore u yimid xabaashii wuuna arkay oo rumaystay waayo weli qorniinka ma ay garan inay tahay inuu kuwa dhintay ka soo sare kaco haddaba xertii ayaa mar kale guryahoodii ku noqotay laakiin maryan ayaa xabaashii dibaddeeda taagnayd iyadoo ooyeysa haddaba intay ooyeysa bay xabaashii ku foorarsatay waxayna aragtay laba malaa'igood oo dhar cadcad xidhan oo fadhiya meesha meydka ciise ooli jiray mid madaxa midna cagaha oo waxay ku yidhaahdeen haweenay yahay maxaad u ooyeysaa markaasay ku tidhi waxaan u ooyayaa sayidkaygii bay qaadeen oo garan maayo meeshay dhigeen markay sidaa ku tiri ayay dib u jeesatay oo ay aragtay ciise oo taagan mana ay garanaynin inuu ciise yahay markaasaa ciise wuxuu ku yidhi haweenay yahay maxaad u ooyeysaa kumaad doondoonaysaa iyadoo u malaynaysa inuu yahay ninkii beerta ka shaqaynayay waxay ku tidhi adeerow haddaad isagii halkan ka qaaday ii sheeg meeshaad dhigtay anna waan ka soo qaadan doonaaye ciise wuxuu ku yidhi maryamay markaasay jeesatay oo afka cibraaniga ku tidhi rabbaani macallimow ciise ayaa ku yidhi hay taaban waayo weli kor ugumaan tegin aabbaha laakiin u tag walaalahay oo ku dheh wuxuu yidhi waxaan kor ugu tegayaa aabbahay oo ah aabbihiin ilaahay oo ah ilaahiin maryantii reer magdala ayaa timid oo xertii ku tidhi waxaan arkay sayidkii oo waxay u sheegtay inuu waxyaalahaas iyada ku yidhi